waad ka maarmi doontaa inay waqti kaaga baxdo barashada luqad cusub sidoo kale uma baahan doontid aadista iskuul ama jaamacad inay kaaga baxdo sanado aad u badan si aad u kororsato cilmi kaliya waxaad u baahan tahay inaad maskaxdaada ku soo download garaysato in ka yar daqiiqad wixii aad sanado ku bixin lahayd barashadooda maskaxdaada ayaa la dhexgelinayaa memory maskaxdaadana waxay la howlgeli kartaa dhammaan agabyada teknolojiga ah waxaad u baahato ayaad soo download garaysanaysaa ha noqoto luqad cusub ama waxyaabo kale haddaba su-aasha sidee suurtagal ku noqonaysaa in caqliga bini'aadanka la dhexgeliyo memory فكردان يهال أبور كان وحا اسكاله بليونير إيلون ماسك مشروعاً وحا ugu magac daray Neuralink magacaygu Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh meel walba oo joogtaan soo dhawaada ka hor inta aanan u gelin sida caqliga bini'aadanka loo dhaxgelinayo memory-ga waxaan ka hadlaynaa فكردان عجيب كان نك اسكاله إيلون ماسك تاريخيسا iyo noloshiisaba Elon Musk waa nin noocmee ah guulaha uu xaqiijiyay ma dhaba mise waa wax laga badbadinayo daba si aan wax badan oga fahano bal aan ka taariikheyno noloshiisa iyo bilowga guushiisa Elon Musk waxa uu ku dhashay wadanka South Africa sanadii 1971 waxaana iska dhalay hooyo Canadian ah iyo aabba South African ah nolol ahaan ma ahayn qoyskooda kuwa ku faraxsan nolosha ay ku jireen sababtoo ah Elon Musk hooyadii mar walba waxay ka sheegan jirtay kana caban jirtay ninkeeda waa una qaraaci jiray suffer that kind of abuse. Yes. Yeah. I think when I was married, I was told about 3 times a day that I'm boring and stupid and and ugly. ilaa haddana Elon Musk waxa uu ku tilmaamaa aabihii inuu ahaa nin aad u xun. It was not a happy childhood. My father has serious issues. wuxuuna qoray buug oo kaga hadlaya xumaanta aabihiis yaraantiisa wuxuu jeclaa oo waqti gelin jiray isticmaalka kombiyuutarka sidoo kale wuxuu ciyaari jiray geemamka isagoo 12 jir ah ayaa wuxuu sameeyay geemkaasna wuxuu iskaga iibiyay lacag dhan $500 sababta uu sidaas u sameeyay wuxuu sheegay inuu u baahnaa inuu soo iibsado kombiyuutar ka fiican kuwa uu waqtigaas haystay laakiin ma uusan haysan lacag uu ku soo iibsado kombiyuutaro si uu lacag u sameeyo waxa uu ku fakiray inuu sameeyo kadib geemkaas uu iska iibiyo lacagtaasna uu ku soo gato kombiyuutaro If I wrote software and sold it, then I could get more money and buy better computers. So it wasn't really fikradaasna waxay ahayd fikrad hal abuur ganacsi tii ugu horeysay uu abid sameeyo waa uu ku guuleystay asagoo 12 sano jiro da'da 17 markuu soo gaaray hooyadii iyo walaalihii waxay u soo guureen wadanka Canada kadib wuxuu u sii wareegay wadanka Mareykanka si meeshaas waxbarashadiisa uga sii wato jaamacad ayuu bilaabay waxa uu dhiganayay kulliyadda dhaqaalaha iyo fiisigiska waqtiga ay jaamacadda u soo dhamaatay wuxuu go'aansaday inuu shaqo raadsado oo noloshiisa ku filnaado shirkado kala duwan oo shaqo u doontay waa uu ka soo waayay waqtigaas ayuu ku fakiray Elon Musk inuu sameesto ganacsi uu asaga leeyahay waxa uu dhahay hadii aadan shaqo heli karin adiga sameysa shaqadaada because that was the only internet company. And they didn't respond to me. So then I was like, okay, if I can't get a job at the only internet company, then I better try starting something. Elon Musk kuma isan adkeen inuu la imaado hal abuur ganacsi oo asagoo 12 sano jiro ayuu la imaaday fikradiisa hal abuur ee ganacsi tii ugu horeysay abid waa uu ku guuleystay waqtiyadaas waxay ahayd waago internetka bilaabanayay dunidana aad ayaa looga xiiseynayay Elon Musk wuxuu aaminsanaa oo uu dhihi jiray waxaan doonayaa dadka inay u isticmaalaan internetka qaab aad u fudud oo faa'iido leh isla markaana waxa uu ku fakiray fikradiisa ganacsi wuxuuna aasaasay shirkadiisa ugu horeysay abid ee lagu magacaabi jiray Zip2 waxay ahayd website ee dadka ka akhrisan karaan newska ama jaraa'idka waxyaabaha lagu daabaco ayagoo gurigooda joogo aanan u baahnayn inay inta banaanka u baxaan soo iibsadaan joornaalo ama jaraa'id waqtigaasna dadka joornaalada ayay aad u akhrisan jireen Elon Musk shirkadiisana dadku waxay u fududeysay ayagoo gurigooda joogo in meeshaas ay ka akhristaan waxyaabaha dunida ka cusub wuxuu heshiis la galay joornaalada waaweyn ee daabici jiray newska wuxuuna u soo bandhigay fursadan in website-kan Zip2 ay wax ku dhex daabacdaan si meeshaas labadoodaba ay faa'iido uga helaan aaska shirkadan Zip2 Elon Musk waxa ku caawiyay oo garabkiisa ahaa walaalkiis waqtiga ay bilaabayeen shirkadan ma isan haysan lacag ku filan oo waxa ku adkaatay inay xafiis ijaartaan sababtoo ah guriga ay ku noolaayeen ijaarkiisa ayaa dib ku ahaa inay bixiyaan I couldn't afford a place to stay and an office. So I rented an office instead because I got a cheaper office than I could get a place to stay and then I just sort of slept on the futon. xafiis ayay kireysteen meeshaas ayay habeenkii seexan jireen subaxina meeshaas ay shaqadooda ka wateen sababtoo ah ma isan awoodin inay bixiyaan guriga ijaarkiisa iyo xafiiskaba 4 sano kadib shirkadan Zip2 aad ay u kala kacday oo waxa ay heshay macaamiil aad u badan waxayna heshiis la saxiixdeen
wargeyska caalamiga ah ee New York Times inuu wax ku dhex daabacdo shirkaddan Zip2. February 1999 shirkadda Tech Company ayaa waxay u soo bandhigtay Zip2 inay ku iibsanayso lacag dhan $305 milyan oo dollar. Elon Musk iyo walaalkiina shirkadda way iska iibiyeen, wuxuuna Elon Musk faa'iido ahaan u helay lacag dhan $22 milyan oo dollar, halka walaalkii uu helay $15 milyan oo dollar. Isla markiiba wuxuu soo gatay gaariga dunida ugu qaalisan, qiimihiisana wuxuu ahaa $1 milyan oo dollar. taasna waxay ahayd guushii ugu horeysay uu xaqiijiyay, waxa uu ka mid noqday milyaneerada caalamka ugu da'da yar. Expect to receive a car that I've just bought, which is called the McLaren F1. It's $1 million for a car. It's Elon Musk intaas kuma uusan hakan oo isma uusan dhihin lacag ayaad haysataa ee iska seexo. Isla markiiba bil kadib markuu shirkadda iibiyay, waxa uu ku dhaqaaqay inuu la imaado fikrad kale. wuxuuna bilaabay inuu wax ka bedelo qaabka ay dadka lacagaha iskugu diraan. wuxuuna aasaasay shirkadda PayPal. So this is an ATM. What we're going to do is transform the traditional banking industry. muddo kadib shirkaddan dadka isticmaalaya aad ayay u bateen, waxaana ku xirmay oo macaamiil ahaan ay u heshay 1 milyan oo qof. shirkadda eBay ayaa waxay iibsatay shirkaddii Elon Musk ee PayPal, waxayna ku iibsatay lacag dhan $1.5 bilyan oo dollar. Elon Musk wuxuu faa'iido ahaan u helay $160 milyan oo dollar. Elon Musk wuxuu uga duwanaa dadka mar walba waxa ku soo dhacayay fikradaha hal abuur cajiib ah, wuxuuna bilaabay go'aan ah inuu wax ka bedelo cimilada hawada ee sii kululaanayso. I think global warming is a very serious issue, and it's something that we have to address, and the only way to address that is to come up with a car that doesn't add carbon emissions to the environment, and I think the way to do that is with electric vehicles. cimilada hawada ee sii kululaanaysa ayay dawladaha waaweyn mar walba ka sheegtaan, ilaa haddana wax isbedela lagama hayo. laakiin Elon Musk ayaa ku fakiray inuu xal u helo global warmingka ama cimilada hawada ee sii kululaanayso. 2004 wuxuu share ku gatay shirkadda Tesla, sharekaasna qiimihiisu wuxuu ahaa $6.5 milyan oo dollar. shirkadda Tesla ayuu horumarin ku sameeyay, wuxuuna wax ka bedelay nidaamka isticmaalka ee gaariyaasha. Tesla waxa ay soo saartaa gaariyaal ku shaqeynaya koronto. gaariga waad charge garaysanaysaa sida taleefanka. shirkaddan Tesla gaariyaasha ay soo saarto waxa ay ka mid yihiin gawaarida dunida ugu qaalisan. sidoo kale Elon Musk waxa uu sameeyay ama aasaasay shirkadda loo yaqaan SpaceX. SpaceX waa shirkadda iska leh gantaalada xambaarta dayax-gacmeedyada. waqtiyada hore gantaalada xambaara satellite-yada waxa ay ku bixi jirtay lacag aad u badan. gantaaladaasna waxa la isticmaali jiray kaliya hal mar, oo haddii uu dayax-gacmeed qaado dib dambe looma isticmaali jirin oo meeshaas ayuu ku burburi jiray. laakiin shirkaddan SpaceX ee Elon Musk waxay awood u yeelatay in hal gantaal oo shirkaddan leedahay dhowr jeer la isticmaalo, meeshaasna ay ku baaqato lacag aad u badan oo khasaari lahaa. shirkaddan SpaceX waxay noqotay shirkaddii abid ugu horeysay oo qof leeyahay oo tagto meeraha sare ee Mars. Elon Muskna waxa uu damacsan yahay in mar un bini'aadanku uu ku noolaado meeraha sare ee Marska. haddana wuxuu wadaa mashruuc Marska dushiisa loogu beerayo geedo si meeshaas looga helo oxygen ay dadka ku noolaan karaan haddii meeshaas bini'aadan la geeyo. 2016 Elon Musk wuxuu aasaasay company oo ugu magac daray Neuralink. wuxuu sheegay in company-giisa Neuralink ay caqliga bini'aadanka ku beeri doonaan memory-gaas maskaxda la dhex gelinayo sidaan ayuu u egyahay. qofka maskaxdiisa ayaa la qalayaa, memory-gaasna waxaa la dhex gelinayaa maskaxda bini'aadanka. wuxuuna sheegay in qofku uu awood u yeelan doono wax alla wuxuu u baahday inuu soo download garaysan doono. memory-gaasna wuxuu leeyahay Bluetooth. tusaale haddii aad haysato computerkaasna waxa ku jira aad u baahan tahay, waxaad furanaysaa Bluetooth-ka maskaxdaada. wax alla waxa computerkaas ku dhex jiro ayaad waxaad ku shubanaysaa maskaxdaada. maskaxdaadana waxaad u samaysanaysaa bay leeyihiin feelal aad ku kaydsan karto xusuusyada qaarkood. qalniinka maskaxdana waxaa sameynaya uu leeyahay robot ama computer si looga fogaado khaladaadka bini'aadamka. Elon Muskna waxa uu leeyahay qalniinkaas waqti badan ma qaadanayo. qofka subax ayuu isbitaalka soo galayaa, galabkina waa uu ka baxayaa isagoo caafimaad qabo. sidoo kale memory-gaas waxa uu la shaqeynayaa sensiga ama dareemaha ay maskaxdaada bixinayso. tusaale ahaan adigoo sariirtaada jiifo ayaa waxay kaa qabanaysaa inaad damiso lightka qolka. waxaad ku fakaraysaa kaliya nalkaasoo damay, nalkii si automatic la ayuu u damayaa. uma baahanaysid intaad soo kacdo inaad nalka damiso, kaliya waad ku fakaraysaa nalkana automatic ayuu isku daminayaa. sababtoo waxay leeyihiin memory-gaas wuxuu la howlgalayaa wax maskaxdaada ay u baahan tahay. qalabkaasna hadda waxaa lagu tijaabiyey oo la dhex geliyey
doofaar laakiin dad aad u badan ayaa kasoo horjeestay fikraddan Elon Musk waxayna sheegeen haddii qalabkaas la dhexgeliyo maskaxda bini'aadamka oo qalabkaas uu la howlgalayo technology-ga ama computerka soo uma fududaanaysa dadka wax jabsada ama hackaaska in maskaxdana ay jabsadaan oo ay la wareegaan dhammaan waxyaabaha ku fakarayna ama caqligeena way dhici kartaa oo waa suurtagal in dadka wax jabsada maskaxdaada ay u soo dhacaan oo ay la wareegaan memory-ga maskaxdaada ku dhex jiro oo siday rabaan ay ku maamulaan laakiin Elon Musk wuxuu sheegay in waxyaabahaas oo dhan ay kasii baaraan degeen oo waxyaabahaas aysan dhici doonin haddii qalabkan la suurtageliyo oo lagu beero caqliga bini'aadamka mustaqbalka waxaa dhici doonta in dadka aysan aadin jaamacada ama iskuul oo wax alla waxay u baahdaan maskaxdooda ay kusoo shubtaan kasoo qaad maanta waxaad dalxiis u tagtay waddanka China luqadda waddankoodana ma taqaanid dukaan lagu gado luqadda waddanka China ayaad gelaysaa maskaxdaada ayaan lagu shubayaa dunidan casriga ah ee aan joogno marka kasii dambaysa teknolojiyadu way isa sii bedelaysaa waxaana imaanaya waxyaabo kugu cusub oo weliga aadan horey u maqlin muuqaalkeenan intaas ayuu noogu egyahay haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow muuqaalkana like saar si dad badan u sii gaaro waqtigaagana waad ku mahadsan tahay